aad baan u salaamayaa gudoomiyaha degmada Ballimataan iyo odayada degmadaba waxaan noo farxaday inaan maanta nimaadno ka bilowno degmada Ballimataan waxay gelin ku saabsan nidaamka daaweynta xoolaha oo nidaam aan waddanka oo dhan ka bilaabayno marinayno waddanka oo dhan 6 gobol oo dhan iyo degmooyinkiisaba inaanu maanta halka ka bilowno farxad weyn bay noo tahay waxa sidoo kale farxad noo ah inaan dadka ayagana gaarsiinayno oo u wadno nidaamkii isku xidhnaa ee maamul daadejinta wasaaradda daaweyntii iyo dadkii daawada xoolaha u daaweynayaba inaanu soo gaarsiino marka maanta Ballimataan waxaanu ka bilaabanay wacyigelin waxaanu sidoo kale xog iyo xogogaal baanu u noqonay nidaamka iyo heerka ay ka taagan tahay waxqabadka wasaaradda xanaanada xooluhu insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaanu halka maanta ay taagan tahay meel ka wanaagsan aanu isugu soo noqono muddo kadib ama week kadib ama bilba kadib maanta halkan waxaa noogu yimi wasaaradii xoolaha xanaanada xoolaha marka waanu ku soo dhaweynaynaa waana ugu mahadnaqaynaa deegaanku waa deegaan ballaaran wuxuu u baahan yahay wixii xoolaha lagu daweyn lahaa iyo wax qabasho annaga iyo iyagu baanu ka wada soconno mahad celin gudoomiyaha Ballimataan waanu mahad celinayaa boqolkiiba 95 si nidaam loo ula shaqeynaya xanaanada xoolaha deegaanka dawladda isagana saasan ugu mahad celinaya anigu waxaan ahaa nin dadka 2012 ayaan tabarka qaatay marka waa shaqeyn jiray ka bacdi hawshana waa hawl dib badan oo waa nin xoolo ka shaqeynayo u lugeynayo rafaadayo oo dib badan waayo guriga ninkii loo tababaray degmada Ballimataan uu haayo insha Allah laakiin imaka diyaar baan ahay dadkana waa dadkii aan u shaqeyn jiray mid kale degmadani waa meel ceelbiyood leh ceelkeedu ma dhamaado taasina waxay horseedaysaa in xoolo badan ayaa markaa ku soo aroora aad bay deegaanada runtii ugu xoolo badan waayo waxa laga yaabaa in toddobaadkii 2,000 oo neef ay soo arooraan waa ceelbiyeelo meesha riigilaho xaruntii xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga maanta halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa team oo hogaaminayo isduuhii gobolka ama kusmihii isduuhii gobolka iyo team wacyigelineed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in teamkaas noo yimaado oo uu ogaado xaaladda xoolaha amba xoolo dhaqatada sidii looga wacyigelin lahaa xanuunada iyo qaabkii ay dawooyinka u isticmaali lahaayeen wacyigelintaas oo maanta ka bilaabantay degmadii Ballimataan sidoo kalena aynu joogno xaruntii degmada loo dhisay oo aynu doonayno maanta laga bilaabo inay si rasmi ah u shaqeyso oo inankii loo tababarayna uu joogo oo imankana lagu wareejin doono dawooyinku meel gaar ah si uu ugu shaqeeyo wixii dambana aan ka hawlgali doono ka degma ahaan iyo wasaarad ahaan in xaruntii xarun weyn oo shaqeynayso wixii qalab ay ka dhimanna iyo baahiya ka dhimanna aanu gudbin doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in teamkaas maanta halkan shaqada ka bilaabo insha Allah ta'ala sida ay shaqadu bilaabantana ay u socon doonto aanu annaguna dabada hayn doono aanu ka hawlgali doono in dadka deegaankana waxaan ku boorinayaa wixii cabasho ah ee ay qabaan ay arkaan inka degma ahaan ay soo gaarsiiyaan anaguna wasaaradii la xiriirno iyo gobolkiiba marka alxamdulillah maanta hawshaas halkan ay nooga bilaabantay mar labaad waxaan u mahad celinayaa teamka uu isduuhu hogaaminayo iyo teamka kala dhaqaatiirta iyo warbaahintaba aad iyo aad baa u mahadsantiin insha Allah shaqada maanta bilaabantana si fiican bay inoogu socon doontaa anaguna wixii karaanka iyaga waa u dadaali doonaa sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga iyo agaasimaha iyo agaasimo waaxeediyada dhammaan waa shaqo socotay oo degmooyinka oo dhan laga bilaabay si maamul daadejin loo sameeyo xooluhu waxay joogaan waa degmooyinkii maadaama ay nahay dad ku nool xoolaha si xoolihii daryeelkooda iyo caafimaadkooda looga warhayo shaqada ay wasaaraddu bilowdana waa ku boorinaynaa aad iyo aad baan ugu boorinaynaa anaguna dhinacayaga iyo karaankayaga wixii degma ahaan waa ka qayb qaadanaa